kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni qubanaha VOA. toddobaadkan barnaamijkeena qubanaha VOA-da waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre. waxaa qodobadaan idinku haynana kamid ah mushkiladda iyo qulqulka qaxoontiga oo wali ka socda Yurub iyo kooxo loo yaqaan magafayaasha Talyaaniga oo dhibaato ku haya dadka muhaajiriinta ee dalkaasi gaaraya. injineero iyo saynisyahano ku sugan bariga Afrika oo ku howlan soo saarista biyo sifaysan oo casri ah si looga baxo dhibaatada malaayiinka qof ka haysata biyo nadiif ah cabaan. ilaa iyo 140 arday oo dhawaan ka qalin jabiyay barashada Quraanka Kariimka ee magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota. shirkadda Airbus Group ayaa farsamaysay duulimaad aanu injineero lahayn oo loo yaqaano sahminta cimilada waxayna ku guuleysatay tijaabadaasi waxaana duulimaad casri ah hawada ay ugu kicitimaysaa sanadka soo socda. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. qaaradda Yurub wali waxaa ka socda qulqulka dadka muhaajiriinta ee ka soo cararaya dalalka bariga dhexe iyo dalal ku yaala Afrika oo colaad iyo gaajo ay ka jirto. dadkaas ayaa markay soo gaaraan Talyaaniga ee ay ka soo badbaadaan biyaha iyo safarka halista waxa dalka Talyaaniga ay kala kulmaan dhibaato. wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo safar shaqo ku maraya qaybo kamid ah qaaradda Yurub ayaa warbixintan noo soo diray. Talyaaniga oo ah meesha ugu horeysa ee qaxootiga Afrika ay Yurub ka soo galaan ayaa waxaa ku soo badanaya dhibaatooyin ay qaxootiga cusub kala kulmayaan dadka ay Soomaalidu u taqaano magafayaasha. dadkani waxay qaxootiga ugu tagayaan xeryaha ama waxay ka ugaarsanayaan xarumaha tareenada ama meelaha la isugu yimaado. waxayna u sheegayaan inay diidaan inaan far looga qaadin Talyaaniga oo taa beddelkeeda ay guriyo geyn doonaan kadibna ay u amba bixin doonaan dalalka Yurub ee u sii socdaan. Cabdirashiid Cilmi Faarax waa Soomaalidan kula kulmay magaalada Roma. dadkaasu qaab min ganacsi oo kale ay dadku ku sameeyaan oo ka ganacsadaan dadka waxay geeyaan guriyay geeyaan oo yiraahdo annaga in dirano Yurub baan in diranaa dadka waxay ka qaadaan lacag fara badan lacagta waxa ka qaadeen haday meeshii ay doonayeen geyn lahaayeen faa'iido waa ahaan lahayd laakiin waxay sameeyaan lacagtii iyadoo laga qaaday ayaa haddana magaalada Roma aniga kula hadlayo waxay u yimid gabdha 9 bilood ah oo min 1500 oo euro laga qaaday oo magaalada Catania la yiraahdo laga soo galay laga qaaday lacagtii dad fara badan baa intii guri lagu xireysto dadka guri la geeyo ayaa leeyahay anaga in dirana. dadka ay magafayaashu xeryaha kala soo baxeen waxaa ku jira wiilkan oo magaciisa igu sheegay Axmed oo aan Milan kula kulmay. waa 16 jir kamid ah Soomaalida Liibiya ka yimid wuxuuna iga codsaday inaan wajigiisa qariyo. wiilkan wuxuu ii sheegay in magafayaasha ay la kulmeen ay ku jireen haween. laba gabdhood gabadh kamid ah waxay ka shaqeynaysaa xooshkaana la keenay gabadhna saaxiibteed baad waxaana dhahan waxaan ii geenaa wiilal dadka amba bixiya oo maxaan ku dhahay dadkiin sidii noo kala maxaan ku dhahay taakuleeyo oo dhaafiyo meeshan marka gabdhahaas magacyadooda ma taqaan gabdhaha kale qofka bilaahinka ma khalas aduu yahay magaciisa ma sheegto laakiin mid aaminaan dhahay. oday Soomaaliyeed oo Qaahiro ka soo galay dalka Talyaaniga toddobaadkan ayaa Milan igu sheegay inay ka yaabisay sida ay magafayaashu ula dhaqmayaan qaxootiga cusub. arrintaade anagu waxaan doonaynay dadka in loo gargaaro dad garan la magaalada aqoon lahayn oo soo taagtaagan markii la soo kaxeeyay ee la keenay meel dad afkooga ku hadlaya ay la keenay in la daayo oo la yiraahdo ahayd wixii danahooga kale iyaguba waxa xitaa wali ma meedhan anagu sahnay uska giban baaji baan ku joognaa maleexdi. haddaba magafayaasha dadka ay Soomaalidu u taqaano ee Talyaaniga jooga waa dad noocee ah. Khaliif Maxamed waa gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Milano. anagu magafayaasha Soomaalida oo naqaanaha waa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee wadanka Talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub kuwa hadda cusub aan ahayn ee faraha laga qaaday ee sharciyada ka qaateen ee Yurubta u doontay sharciyo kale iyo nolol kale u raadsaday dhowr iyo 5 wadan 6 wadan 7 wadan waxa ay ahaydba laga soo celiyay Talyaaniga ka soo rajo dhigay wadamada Yurub meeshan nolol aan ku haysan shaqo aan ku haysan howl kale aan ku haysan wax kale aan ku haysanin oo ay noloshu ku kaliftay ama dantu ku kaliftay in ay ka raadiyaan hunguri dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indha xiranka ah ee dhibaatada culus soo maray ee magafayaashii Saxaraha iyo Liibiya ay u soo geysteen baa daran ay u soo geysteen naxariis darrada oo qaarkood dil iyo rafaad iyo maartay korkooda ay ka muuqato ay cadeyn u tahay ay hadda markay soo galeen waxay la kulmeen
intii ay sugayeen walaalaha Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay ee guryo geeyay qof ugu soo horeeyay af Soomaali arkay ay ku dhageen qofkiina waxa laga yaabaa inuu ku noqdo magafihii xagga saxaraha maahane Talyaaniga inuu ku noqdo ay xareystaan dadkii guryo ku xirtaan kadibna ay lacag madax furasho ah weydiistaan. gobolka Seychelles oo ah meelaha ay ku badan yihiin magafayaasha oo aan toddobaadkii hore booqday ayaan isku dayay inaan la xiriiro mid ka mid ah magafayaasha oo telefonkiisa magaalada Roma la iga siiyay balse iga muusan qaban. safaaradda Soomaalida ee magaalada Roma ayaa ii xaqiijisay jiritaanka magafayaasha. Safiya Maxamed Cabdulle waxay ka tirsan tahay saraakiisha sarsare ee safaaradda waxaan kula kulmay xarunta safaaradda ee Roma. waxaa jira niman dhahayaan dadkan masaakiinta ah markay imaadaan dhahay anaa ku tahriibinay inteerta Jarman anaa ku diraa inteerta Norway anaa ku diraa ay soo wadaan guriga ku xiraayaan waxay leeyihiin dadkaaga lacag warso oo inta lacag lagu soo diro qofkii la hadlaa waxay leeyihiin intaas oo lacag ninkan iiga baxday masruufkiisa iyo haysmadiisa yaa ii hay ku yirmaadaan dhalay idinkuma baadheen waa baarnay waa ogaanay hadda maxay ahayd naftirkeedan qolooyin badan baa hadda ku socotaa baaritaan ku socotaa. dadka magafayaasha ee Talyaaniga laga helo Soomaalida oo kaliya kuma koobna sidoo kale waxaa jira Eritrean iyo kuwa kale oo Afrikaan ah oo iyagu ka faa'iideysta qaxootiga cusub ee soo galaya oo qaxootigan inta ay ka cararayaan in faro Talyaaniga looga qaado waxay u gacan galayaan kooxo arxan daran oo dhibaatooyin kale oo hor leh si gaarsiinaya. Cabdulcasiis Xuseen VOA Talyaaniga. helista biyo nadiif ah ayaa ku adag 100 milyan oo dunida ku nool. haatanse ayaa saynisyahano iyo injineero ku nool dalka Tanzania ee bariga Afrika waxa ay ka shaqeynayaan inay arrinkaasi wax ka bedelaan iyagoo abuuraya biyo sifeeyaal ay ikhtiraaceen oo biyaha wasaqaysan u bedelaya kuwa nadiif ah oo la cabi karo waxna aanan lagu noqonayn. wariyaha VOA Dobra Plog ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. filterku wuxuu nuugaa wasaqda biyaha ku jirta sida curyaha koborka bakteeriyada fayraska iyo sunta cayayaanka sida uu sheegayo Ashkar Hilonga oo ah injineer dhinaca kiimikada ah. waa nadiif waana la cabi karaa. filterku waxa uu ka samaysan yahay tiknoolajiga nooca xajmiga yar. biyaha wasaqda ayaa carro dhex mara taasoo reebta qashinka iyo bakteeriyada khatarta ah. bakteeriyada nooca wanaagsan ee carrada dul joogta ayaa iyadu cunto ilma aragteeda kale ee carrada cudurrada keena. qaybo kale oo filterka ka mid ah ayaa reeba walxaha kiimikaad iyo walxaha kale ee wasakhowga keena. intii filterkan aanan helin ka hor biyaha waxa aan ka dhaasan jiray webiga marmarka qaarna waxaan isticmaali jiray aniga oo aanan karnin cudurro sida tiifowga iyo cudurro kale oo biyaha wasaqaysan laga qaado ayaan tira ahaan hal filter ayaa dugsigan yaala kaas oo nadiifin kara dhowr litir oo biyo ah. webi ayaa noo dhow hase yeeshee waxaan aragnay inaanu nadiif ahayn. waan tijaabinay biyaha dawladda waxaan aragnay in iyagu ayna nadiif ahayn. si carruurteenna biyo ugu fiican aan u siino filterkan ayaan soo iibsanay. injineer Hulonga ayaa sheegay in dadka oo dhammi ayna wada haysan filterkan. In Tanzania 70% of households. Tanzania boqolkiiba 70 qoysas gaaraya 9 milyan filterkan oo kale ma adeegsadaan. xilligan la joogo halkii filter waxa uu joogaa $140 hase yeeshee injineer Holanga ayaa sheegay inuu deeq lacageed ka helay dalka Mareykanka arrintaas oo qiimaha qalabka hoos u dhigtay iyada oo haatan suuqa laga heli karo. gobolka Minnesota ayaa waxaa ka jira daladay ku midoobeen ilaa iyo dhowr iyo 10 dugsi oo ku yaala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul. dhawaan waxaa dugsiyadaasi ka qalin jabiyay barashada Quraanka Kariimka ah arday gaaraysa ilaa iyo 140 arday. wariyaheena gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa dugsiyadaasi ka wareystay Maxamuud Cabdinuur oo ah maamulaha midowga dugsiyadaasi kana tirsan masaajidka Rowda. ومحدثنتهاي محمود sidoo kale VO-dana way mahadsantahay oo waliba kadib xilliga ay ku soo korortay geeyga Soomaalida wax badan bedeshay wax badan ka qabatay aad baad u mahadsantahay inaguna dabcan waan kaaga mahadnaqaynaa hadallada wanaagsan ee aad nagu cabirtay maxamuudow dhawaantan dugsiyada midowga dugsiyada gobolka Minnesota oo aad maamulayaashiisa ka mid tahay waxa ay soo bandhigeen qalin jabin dabcan la oran karo waxa ay tii ugu ballaarnayd
oo arday ay ka qalin jabinayso quraanka kariimka ee gobolka Minnesota lagu soo bandhigo inta aynaan u galin bal ardaydan qalin jabisay iyo waxyaabaha kala gedisan ay barteen bal marka hore waxaad ii sharaxdaa maxaa loogu baahday in la sameeyo dallad ay ku midoobaan dugsiyo kala duwan oo ku yaala gobolka Minnesota khaasatan degmooyinkan mataane ee Twin Cities waa su'aal fiican maxamuud dabcan xilligii hore waa la yaraa oo dugsiyada iyo masaajidda iyo arrimahaas oo dhan way yaraayeen waxaa sababay in dadkii Soomaalida ay soo badanayaan in dugsiyadii ay sii badanayaan sababtoo ah baahida loo qabo dugsiyada ayaa aad u badan marka wixii bataba waa in la mideeyo haddii marka wixii bato wax walbo yihiinba la mideeyo Yurub waa midoobaysaa waxa marka dugsiyadii iyo dacwadii iyo diintii dadka ka shaqeynaya iyo culumadiiba u diiday inay midoobaan saasaan u midownay si wax qabadku hal u noqdo si waalidiinta loo caawiyo si dhaqankii Soomaaliyeed uusan u zuulin iyo diintii Islaamka oo aan weligeen dugsi iyo meel khayr aan ku soo barbarnay oo aanu intaas ku soo dhex jirnay waa gartay dad fara badan waxa laga yaabaa marka ay la yiraahdo dugsi hal wax oo kaliya ay madaxooda ku soo dhaca oo ah in dugsiga lagu barto quraanka kariimka oo kaliya marka dugsiyadan isu tagay midowga dugsiyada Minnesota ama quraan kaliya ay ardayda bartaan mise duruus kale oo ka baxsan quraanka kariimka barashadiisa ayaad ku bixisaan meesha waxa ugu weyn maxamuud oo saad u sheegtayba quraanka kariimka ah waa la baraa ciyaalka ardada sidoo kale waxaa lagu baraa dhaqankoodii Soomaaliyeed dugsiyada qaar inkastoo kulli ahayn af Soomaaliga lagu baraa oo ogtahay oo carruurta markii halkan laga cisho waxaa loo arkaa inay yihiin dhaqan celis af Soomaali fiican aysan aqoonin aysan qori karin waxyaalo noocaas ah dugsiyada kulligood ma aha arrintaas inay cadaataan rabaa balse qaarkood waxaa lagu bixiyaa af Soomaali haddana manhajka qoristiisa ay socoto uu ku jiraa in af Soomaaliga lagu bixiyo oo cunug walba oo dugsi aadayo af Soomaaliga qori karo akhrina karo qaarkood marka aan weydiino waxay noo sheegaan inay website-yada Soomaaliga xataa galaan oo ay hooyooyinkood iyo u diraan oo u akhriyaan waxyaalaha ay rabaan inay ogaadaan maadaama waalidka qaarkood ama weyn yihiin ama aysan akhrin karin marka arrinta tawxiidka kamid oo caqiidada aad bay muhiim u tahay fiqiga kamid oo fahanka diinta iyo sidii loo suubin lahaa مثلا waxyaabo badan ay u baahan yihiin waxa kamid waxyaalo badan oo noocaas oo kala marka afki Soomaaliga xooga la saara quraanka xooga la saara tawxiidka xooga la saara fiqiga xooga la saara tajwiidki iyo tadbiiqi quraanka qaabka ugu qurux badan loo akhri lahaa xooga la saara intaasna waxa dhex socdo maxaadarooyin iyo waxyaalo lagu tusaayo dhaqanka Soomaalida ixtiraamka waalidka dadka waaweyn sida loo ixtiraamo waxyaalahaas dadweynaha daawanaya oo dabcan hadda barnaamijka inta ku guda jirna daawanaya ayaa bal waxaan isku dayayaa qadar kamid ah qaabkii xafladdu u dhacday iyo qaar kamid ah ardadii quraanka akhrinaysay in kooban inay la daawadayaal bal qadarkan ila daawada la ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا intaasna waxaan ku joojinaynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan haddii aad heesaan fikrado ama talooyin waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailkeena qubanaha@voanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook haddaba intaan toddobaadka dambe dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo